dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qadarinta leh ee munaasabadan soo xaadirtay wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta senatarada aqalka sare xildhibaanada golaha shacabka ambaasador cali America agaasimaha arrimaha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimaha warfaafinta gobolka Banaadir gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir xubnaha nagala jooga maamul goboleedyada dalka culimaawidiinka odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada kale wariyaasha fanaaniinta dhalinyarada wiilal iyo gabdho waxaad mar kale ku salaamantihiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaanu halkan u fadhinaa oo aanu munaasabadan u soo xaadirnay waa maalinta cafiska ummadda Soomaaliyeed ololahan oo soo socday muddo 4 sano ah laga soo bilaabo 2018 guulo la taaban karana xaqiijiyay ayaanu maanta halkan ku xuseynaa ayada oo sidoo kalena munaasabad tan la mid ahi ay ka socdaan wadamada caalamka qaarkood sida magaalada London wadanka Finland sidoo kale waxa uu ka socdaa Denmark Norway magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka gudahana waxa uu ka socdaa magaalada Muqdisho oo maanta aanu halkan fadhino magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose Dhuusamareeb Galgaduud ah Beledweyne oo Hiiraan ah Garowe oo gobolka Nugaal ah iyo Gaalkacyo oo gobolka Mudug ah dhammaan munaasabadan oo hal waji leh ujeedkeedu waxa uu yahay in ummadda Soomaaliyeed ay iscafiso ayada oo si kal iyo laab ah oo cid la khasbay aysan jirin ujeedkuna uu yahay in la gaaro laab furnaan iyo qofka oo dareema nafis sidaas darteed munaasabadeena waxa ay ka koobnaan doontaa khudbado kooban oo ay jeediyaan mas'uuliyiinta halkan lagu casuumay iyo sidoo kale muuqaallo aan ugu talagalnay wacyiga iyo waaqica ku saabsan arintan cafiska si aynu wax badan uga ogaano sidaas darteed bal marka hore Allah u naxariista injineer Yariso gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho mar uu ka qayb galay munaasabada maanta oo kale ama xilligan oo kale la qabtay ee looga hadlayay arrimaha cafis muuqaalkii laga qabtay isagoo ka hadlaya cid kasta oo isaga wax uu ka tabanayay inuu cafiyay isna codsaday in la cafiyo Allah u naxariistay ayaanu daawanaynaa waxaan jeclaan lahaa bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto inaan maanta kala aqoonsano maalintii cafiska maantana qof walba Soomaaliyeed fadlan wixii qalbigaaga ku jiro muxuu ahaa ku bedel wanaag qof kasta oo wax u qabtayna cafi aan iswada cafino anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kasta oo dambiga galay waa cafiyay waxaan rajaynayaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan iswada cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenayso ma jirto waxaan rabaa ujeedka cafis iyo shaqooyinkii uu soo qabtay iyo hiigsigiisa si kooban inaan ku soo dhaweeyo Cabdifataax Maxamuud Siyaad Arizona soo dhawow saa ogtihiin dhibaatada dalkeena bulshadeena dhexdeeda kala gaartay wax la xisaabin kara maaha waxayna leedahay noocyo aad u tiro badan qof walba oo naga mid ah waxa laga yaabaa in maantay wax ururkiisa ay ku jiraan uu tabanayo qof kale oo Soomaaliyeed uu ka tabanayo waxa sidoo kale xaqiiqo ah in wax badan oo aan kala tabanayno maanta meesha aan naalno oo Soomaaliya ay joogto ayna dhigtay annagoo isku ursamaantaas darteed la'aanta ay jirto darteed qof waliba uu meel gooni isugu xiray oo uu leeyahay ma hebel oo shalay sidii uu ii galaan ogaa ayaan maanta wax la wadaagaa wax la dhistaa meel la fadhiistaa wax wada qabsanaa maamul wada dhisanaa dawlad wada noqonaa haddaan nahay ololaha dadweynaha cafis ololahan wuxuu u istaagay inaan marka ugu horeyso ka wada hadalno waxaan kala tabanayn kadib iska cafino markasta oo aan iska cafino waxyaabaha uurkeena ku jira ee aan kala tabanayno ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan noo sahlanaanaya
inaan si dhaqsaa isula jaan qaadno waxa maanta ay ka fikirayna waxa waaye wax dhexdeena ah hebel waxaasan ka tabanayaa reer hebel dhibkaasay noo geysteen xisaab baa hebel igala dhexaysa ama reer hebel nagala dhexaysa laakiin haddaan xisaabtaas iyo urkutaalladaas dhexdeena ku jirta ee caloosheenna mariidka ku noqotay aysan dhexdeena ku jiri lahayn waxa aan ka fikir lahayn waxa waaye sideen u gaari karaa horumarka hebel sideen u noqon karaa aqoon-yahan tiigsada sida hebel oo kale waxyaabaha uu tiigsaday waxa aan ka wada fikirayna dhammaanteen waxay noqon lahaayeen horumarkaas aan ka wada fikirnay waxaa dhammaanteen jiilasheenna soo socda iyo kuweena maanta joogaba ay noo wada horseedi lahaayeen inaan gaarno meesha ay dunida joogto maantay halkaan dunida saddexaad maantay ka mid nahay waxaan ka mid noqon lahayn dunida horumartay ama dunida horumaraysa ayaan ka mid noqon lahayn waxaasoo dhan waxaa hormuud u ah marka inaan waxa aan kala tabanayna marka hore iska cafino waxaan oo ololo dadweyne ah waxaa aasaasay bahda warbaahinta qaar ka mid ah iyo ururada bulshada rayidka ah qaybo ka mid ah ayaa si wada jir u aasaasay waxaan rabaa inaan si wada jira oo niyad leh aan hal mar ugu wada sacbinno ololahan fikirkiisa walaalkay weli xaashi oo iska lahay curinta fikirkan inaan hal mar aan u sacbinno mar kale asxaabta farsamada aan ka codsanaynaa haddii laga kala gelin karo muuqaal ku saabsan sargaal la yidhaahdo maxamed sheekh oo degmada markee gobolka shabeellaha hoose ku sugan oo muuqaalkiisa waxa uu ka hadlayaa inuu cafiyey wiilkii dilay isaga wiilkiisa weliba ninka isaga wiilkiisa dilay waa istaafkiisa weliba waa ula shaqeey wuxuu qaatay go-aan inuu iska cafiyaa muuqaalkana hawanay degmada marko ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada marko waxaan rabaa inaan mar laba iyo mar saddexaad aan ka cudur dalato wacitaankii maanta waan ku balansaneen ee ahaa madasha isaafinta magaalada muqdisho saas la digiga waan ka cudur dalatay markii hore mar labaad liajli difaacyada aan joogna awgeed عكس واحد مهم ولا شيء مهم ولا ما هو عليه كده معاه خوف كستو صومالي اما خوف كستو مسلم وحمليه هاي عكس كده على واحد بقطعه عكس واحد من بلاه انا لو يجي عن طريق دينا ما بيسال الاول من واحد مدير كما خبر او دينا ما بيسال من ده ايوه عشان من واحد مدير كما خبر دينا كما خبر لكن مسؤول ما تقولي حتى عليه وحسب انت دي اساس الخبر أنا واحد أتخذ وما واحد مدير مثلا أما واحد مدير ما له إلا ما تمر أصلا هذا سبب ويلكي أقدم هذه تقول ويلكي ما تدري أي جواب أنا بحكي صوته سنة كلام مسؤولة عكس واحد ولا ويلكي صوت أنت مسؤول الله عكس صوت عن فتعطيه ثلاثة أطراف واحد خوف صوت مسلم أم خوف صوت صومالي عكس المخاطب واحد منهم ولا ما أخذ ويلكي إذا تقول كانوا ديو ودي خوف أنتوا نوري أصوات أنتوا نوري أصوحتها ما خديش تنتو قبل ما تجيله وحوجة معها ويقول لك أنا وأنت قفكي دريم ما تفضل الناس وحيجرا عليه دراسة كده أنا أدب كجلس بحكرة لأجل لكن كان أنت كان هاد أنت إن ده هذا وحنتهاي مركو حربة سراكيش إذا ماذا الصوماليا مسؤولين الدولة الصومالية نقولها سر يقولها ده وحربة خوف كستو ومسؤولين ده أيسارن تهاي إن في إلهي أسأوجه مسؤولية سأقطه وركن وابدي وحربات سلاك رال نخذه مدشي وحربا وما سنتين كن يكوجر كسو خيب قلكينا كسو خاطئ أنا نقول سو خيب قلي قف كستو ماشي جو إجا مسؤولة وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما دريمين وحبد على شيء قد عدونتا ما دريمين soona ila jirin afiyay waa nin walaalka intaasna ku mahadsiya oo soona wili arag uu yiri habsiga laga soo daawi afiyay horta midaas waa ugu mahad celiyay waayo eedo waxay tir hal ii xiro dina waxa ari aan limay awgiisa ii xiro waa xarag ugu dahay lama ogeen
wiilkii kalena waa laga furay eedaa ka furtay anigana ima aysan ogeyn waa iska keelawdo gadagadaal la xiray xarig gadagadaal la xiray marka ila amarkiisa alxamdulilah xarigis waa laga furay gacmihii waxaa la arkay maaragtay barrayo fashiyo maaragtay sheeg aniga gacmihiigana ma go'i lahayna waayo waxaa la mariyay qaba aan loogu talagelin la mariyay qaaba maaragtay ceelal meel dhahayo gobol oo deganaya laga sii maray oo kabacdina waa ligeed wasra laga soo jaray cabdirasaaq waxaan rabaa muxuu ahaa waxa kugu kalifay inaad cafisid tacadigan kugu dhacay ciddii kugu geysatay horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat haddaan arrinkaas ka hadlo oo maaragtay ishaag cafiska ah waayo aniga waxaan arkay dad iga daran oo maaragtay ishaag oo lugaha ku socon oo gurguurinayo markaan arkay kuwaas ayaa waxaan dhahay nimo yahow waxaan ilaahay aan kugu talagalay wax walbana qadarta ilaahay baa iska leh maaragtay qadartana way socotaa wax walbana tusaale ummadda looga dhigayaa maaragtay idinkana maaragtay ku tusaale qaata cabdullaahi waxaan rabaa intii aad ka sheekaysay waa ka dherigsannahay markii aad go'aansanaysay in ninkii walaalka ahaa ee xabadda kugu dhuftay sidee go'aankaas uu kugu dhashay markiisa horeba bismi illaah waxaan rabaa daarigta su-aashaada inaan toos u guda galo markii aniga dhibku i gaaray dhibku wuxuu ugu gaaray meeshaan haddan aan joogno madaxtooyada beertaan nabadda horteeda jagboyntka ah isbitaalaa la geeyey qalliinaan galay qalliinkaan ka soo baxay subaxii markii aan qalliinka ka soo baxay oo isbitaalka ka imid waxaa ii imaanaya dad aada u fara badan ehelay u badnaayeen odayaalaa ku jira dad waaweynaa ku jira qof walba u yimaadaa marka booga u damqinay oo wuxuu ilahaa ninkan hadda yarkaa muxuu ninkaas ku dilay reer u dilay oo qabiil sababtiisa u dilay labada reer oo ninkan ka dhashay iyo ninkii reerka ka dhashay dhib ka dhaxeeyay culaysyadaasaa sabab u ahaay waxyaabo badan oo mar kasta oo la taabto calooshu xanuunaysa mar kasta oo la taabto dhibsanaayo mar kasta oo laga sheekeeyo waxa igu dhacay iyo dhibka ugu dhacay aan xanuun la dareensiinayo kaligayaa fikiray waxaan qaatay go'aan ah warniyahow ma xanuunsanaa kartid dhibkaan kuma sii jiri kartid si aadan dhibkaan ugu sii jirin go'aan qaado adiguna aad caafimaad u hesho hadalladan lagugu duraa maalin walbana aad uga nabad gasho go'aankaasaa ugu dhaliyey kaligaa meel fadhiistay waxaanu go'aansannay guudteeyo inaannu u sacayno innagoo dhaqankii oo isku duuban ah oo mid la dulmiya mid la du'a midna sheegaynin inaannu ummaddii soomaaliyeed u horseedno iscafis guud gudahayaa ka bilowno aanu gobollada soomaaliya o dhan insha allahu tacaala ku ballaarinno inaannu qor walba gurigooda ugu tagno waxaa la yidhi halla iscafiyaa la yidhi aniga waxaan raadinayaa waxaan cafiyo aniga waxaan ku dhashay magaalada muqdisho aabbahayda sidoo kale annaga baadiye ma aanan qabin baadiyena ma qabno annaga maadaama aan magaalada muqdisho ku dhalanay maalin maalmaha ka mid ah dagaalaa dhacay annaga cidda la dilaayo iyo cidda la daynayo maanan aqoonin maleeshiya noo imaatay gurigeena lagu soo weeraray aabbo waa la dilay ninkaygi waa la dilay adeero iyo abtiyaal qoyskaygii intii badnayd maalintaas waa la dilay aniga waxaan ku jiray marka xubno baxay oo lugeeyey waxaan ka soo lugeeyey gubadley meel la yidhaahdo xaaji cabdi waxaa laga yaabaa in qaarkii yaqaanaan waxaan lugti ku imaaday madiinaa lugti ku imaaday dad aan ka aqaanay waa la iqaxiyey waxaa la igeeyey baydhabo siduu yidhi abwaan hore subag weer ku daataa sinna uma xumaade waxaan uga socdaataa iscafiya somaalan sokey iyo cigaalo kazaalika ceebaha siduu yidhi abwaan hore subag weer ku daataa sinna uma xumaade
qof ilaahay timo adag sidaydoo kale timo adag u dhaliyey timihiisa adag in lagu xaqiro anigu hadda waa timo adag ahay nin iga tima jilicsan baa la leeyahay waa jareer weeye waana xaqiran yahay leeyihi kaasi waa dulmi mid madow oo gaaban oo urjuf ah ayaa nin dheer oo cad oo qurxan ayuu wuxuu leeyahay qabiilkiisu waa yasan yahay anna waxaan ahay geedkii buu leeyahay nin aan weligiis shaqaysan oon ilmihiisa wuxuu ku shaqaystay aan weligiis u keenin ee shaxaad iyo qashin iyo qurun iyo tuugsi ku soo koriyey ayaa wuxuu gabadhiisa u diidahayaa nin injineer ah oo sariiraha sameeya oo albaabada sameeya oo biraha sameeya oo wiilkiisa injineer ka dhigay ayuu leeyahay aabbaha biruhu tumi jiray sidaas awgeed anoo tuugsi ku soo koriyey gabadhayda ma geydid buu leeyahay waxyaaba waxaa weeye laga xishoodo oo laga yaqiiqsado oo dhaqankeenna ku foolxun wey cafiska marka aad maqlayso wuxuu ka kooban yahay 4 qodob horta waa inay jirtaa run intaada horta waxaasoo dhan ka fikirin run qof diyaar u ah inuu runta sheego oo istustus iyo qab iyo jahli uusan ku jirin taas waa qodob qodobka labaad waa qirasho waa midda farxiyo ayna weydiinaysay qirasho dadkii aabaheed iyo hooyadeed ayadinkeeda dilay hadday soo hor istaagaan waxaan maanta ku dhaaran karaa ooy u qirtaan ooy runta ka sheegaan oo u dhowaadaan sidii cali ameerika khayr allah siya wiilkii gabadhiisa dilay waxaan aaminsanahay inay cafiyayso laakiin umay imaanin nimankii ka dilay waalidkeed iyo ninkeeda hamoodinina farxiyo inay tahay qofka keliya milyan Soomaaliya ku dhacday waliba ma gelin faquuqii aan ku sameeynay oo aad tiri gabar Soomaaliya ma guursanayo kuma geeyo ajiba aad ku tiri ma isweydiina weligeen yaa noo sameeyey dhaqankaas yaa noo abuuray yaa nagu raray yaa qolqolaha noo geliyey annagoo su'aal iska weydiinaan saxaabada ku sidanaahay yaa noo sameeyey ma isweydiin ma ka wada hadlo ma isu sheegay seen aniga iga dhaadhicin kartaa qof Soomaaliya ee muslim ah ee dhulkan kula degan yaan ka fiicanahay ka xuquuq badanahay ka awood badanahay ka dhibaacsanahay ka toofarsanahay yaa iga dhaadhicina sayga macna horta waa inaan fakarnaa qodobka saddexaad ee cafiska waxay tahay qirashada haddaad qiran cafis ma weydiisan kartid qofka waayo waxa ma aqoon kan afraad ee ugu muhiimsan marka waxa waaye waa in qof kasta ee Soomaaliya ee marka horeba diyaar garoobay inuu wax cafiyo ama la cafiyo waa inuu u diyaar garoodaa halgan cusub ama sida dad qaar u yahay jihaad cusub oo aan uga hortagayno qashinkan gumaysiga nagu haya oo iska kor qaadi lahayd qabyaalada ah oo faquuqa ku dhisan inaan iska qaadno in Soomaaliya u tashato annaga si gooni barnaamijkan noo taabanaysa maayarkii magaalada Neyti الله ونحرسته إنجنير عبد الرحمن عمر اسمان إنجنير يريسو عفيس كمالنتا سيتي برنامج كان وكسو قيب قال وكدل بدي معلومات كدبنا سجا يا كودنتي واحد دلينا من قانو ما يركان مقالة دي سيكوي سدي واتذا يعني إلا يهدنا عدالة إنسان هيلين مركانا إن أنا أصي فيرنا ما هني جيلك ما أنت صدق كسنا كل شيء دي واتذا أو يقول لسدلايو يدلك يوبر برسن الشيء haddaanan maanta cafis iyo wanaaga aan u horseedin aanan tusinin ayagana bari waxay ku soo barbaarayaan xumaato waxay ku soo barbaarayaan midkii shalay qabiil hebel aabaha dilay ama walaalka dilay ama hooyada dilay ayaa ku programsan wixii iyagana sii raacayaan inaan ka baabi'ino marka kuwa 30 jirka maanta wax garto kuwa ay dhaleen maanta inaan u sii fidino gogol nabad ah aan ugu shaqeyno waxaan aad ugu mahad celinaa tiimka cafis u horay gudoomiyahooda marka cafis la yiraahdo dadku waxyaabo badan ay tahay inay iska cafiyaan laakiin 4 sano hadaad fiirsatid doodihii barnaamijkan ka dhashay iyo hadalka dadka iyadoo aan cidina soo diyaarin
mar kasta waxaad dareemaysa oo jiidanaysay ciwaanka ama ereyga la yidhaahdo qabyaaladda oo sheekadu mar kasta ay u noqonaysa waxaa markaa dareemaysaa maxaa xidhiiriyey ciwaanka cafis iyo qabyaaladda maxaa mar kasta isku xira oo sabab u noqda in dad kala duwan oo laga yaabo in qofka munaasabaddan hadda dad badan oo ka hadlay aanay sanadkii hore ka hadal kuwii sanadkii hore ka hadlana aanay sanadkii ka sii horreeyey ka hadal maxaa mar kasta qabyaaladdu ay tahay waxa u jiidanaysaa oo maxay u jiidanaysaa cinwaanka u qaadanaysaa waxa weeyaan sabab aad iyo aad u fudud oo ah xanuun dadka soomaaliyeed oo dhan haya oo ku raagay oo ku daahay oo dhibaato weyn ku haya oo la yidhaahdo qabyaalad taasoo runtii halisteeda iyo inta lagu baraarugsan yahay ay aad iyo aad u kala fog yihiin aad iyo aadna u kala duwan yihiin eeddii ay lahayd oo ay mudnayd iyada in la saarana laga leexiyey oo laga jeediyey ama ku talagal ha ahaato ama yaani ku talagal ahaanin marka waxaan rabaa aniga arrintaas inaan wax yar ka iraahdo intoo su-aado oo ah cudur aan la aqoonin layskama cafiyo waxaa layskamana daaweeyo lagamana raysto adduunyada dadka cudurradu markay ku dhacaan ibni aadamka haddaad xanuunsato maanta oo xanuun kugu dhaco waxa u horreeyo aad u baahan tahay ma aha xanuunka inaad iska daaweysay waa inaad horta xanuunka ogaato wayaan waxa ugu yarood samayn karta waa laga yaabaa inaad baristimool qaadato laakiin waxaad ku qasban tahay inaad isbitaal tagto oo dhakhtar u tagto dhakhtarka markaad u tagto oo uu ku baaro oo xanuun uu kaa helo xanuunkaas ayay tahay markaa inaad iska daaweyso dadkana waa lagu dhiirigeliyaa adduunyaduna aragti iyo fikrado iyo wax tiro badanay muxuu ahaa ka leedahay marka dadka soomaaliyeed cudur ku raagay ayaa haya cudurkaasna haya oo nagu raagay wuxuu naga hor istaagay wax kasta oo wanaagsanaa oo ay mudnaayeen dadka halkan jooga oo ay mudnaayeen kuwii dhintay oo ay mudan yihiin kuwa dhalan doona cudurkaasi waa midka keenay in qarankeenna uu burburo in aan caafimaad weyno in aan waddooyin weyno in aan karaamo weyno in aan dadka asaageennahay siday u nool yihiin u noolaan weyno ugu dambaynna na qaayibsiiyey oo na aqbalsiiyey in gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed ay wax caadiya u arkaan inay wiil iyo gabar la fac ah oo waddan kala jooga intay u tagaan oo gacanta u horsadaan ay yidhaahdaan walaalow i aqbal waddankaaga inaan ku noolaado i aqbal cayrtaada inaan qaato i aqbal yacnii wax ka xun dadku inay isbaryaan ma jirto baryada islaamku xitaa ma ammaane su-aasha koowaad oo isweydiinta mudan waxay tahay cafisku ma diinbaa ma dhaqanbaa muxuu yahay horta waxaa ogaanaysiin annaga dad muslimiina ayaa nahay muslimnimadana waxaa jirto waxyaabo badan oo ay kugu waajibinayso waxaa ka mid ah qofka muslimka inuusan dembi geysan inuu ku dadaalo dembigaas wuxuu noqon karaa mid ilaahay uu ka galaayo ama mid uu aadanaha uu ka galaayo labadaba qofka muslimka ah way ka xarimanta sidaas daraaddeeda bani aadanaa loo yahay waa lagu dhici karaa taa markay dhacdo marka waxaa jirto wadiiqooyin loo maro oo ay ka mid tahay qofka inuu qofka walaalkiisa dembiga geystay uu cafis weydiisto cafiskaas marka dhinacaas wuxuu ka yahay arrin diineed qofka la weydiistayna inuu cafiska fadli badan yahay ayay kitaabadu noo sheegeen oo ah walcaafiina can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin qofka inaad cafiso dhib walba oo uu kuu geystay arrin maaragtaa aada maaragta diinteena u bogaadisay waa at the same time haddana dhaqankeeni soomaaliyeed oo diinteenni ku salaysan oo soo jireenka ahaa asagana aada loogu ammaanay reer mudugbu meesha ay ka yidhaahdaan waaye wax walba xaliidhilay aan ka noqon qodobka kale waxa waaye
arrimaha laga hadlay oo dadka Soomaaliyeed 60kii sano ay la soo noolaayeen kulli hadda inta dawladnimada la haysto oo colaadda leh oo wax wada qabsasho la'aanta leh horumar la'aanta leh duruufaha kala duwan ee aan soo marnay intaan ku soo jirnay geediga dawlad dhisidda iyo maaragta intay naga burburtay kadib iyo haddana dib u yegleelidii qarankeena taa waxaa aad u sharxay walaalkeena Al-Cadaala qabyaaladda iyo gaajadu iyo abaarta iyo colaaddu isla socdaan wax kala haraay ma sababtoo ah adaa meel adduunkan oo ballaaran adaa ciriiri iska gelshay oo yidhi halkaan luuqa oo 4 qofood deganta ayaa xankaygii iyo caqligaygii iyo qalbigaygii intaasaan ku soo koobaya marka ma helaysid ama wax kuma darsanaysid ilaahay subxaanahu wa tacaalaana bani aadanka asaaba kala duway oo xikmadaha ilaahay waxaa ka mid ah dadka buuraha ku nool iyo dadka dhulka caadiga ah ku nool isku si xataa uma samaysna isku aqli xataa ma ninkan wuxuu yaqaanaa sida buurta loogu noolaado kan wuxuu yaqaanaa dhulka caadiga ah sida loogu noolaado qof wuxuu yaqaanaa sida barafka loogu noolaado qof wuxuu yaqaanaa sida qoraxda loogu noolaado ilaahay subxaanahu wa tacaala umuuraha asaga dadka aqligooda iyo maskaxdooda iyo environment-iga ku kala nool yihiin ku kala bedelay mikrofona halkaan ku haysanaa sida hadda walaalkeena sheegay ma naqaano sida loo sameeyo baahida keentay xataa ma naqaano weligeed ma aanan daraasin laakiin dadaa sameeyey aqligaas iskale inaad kaashatid waayo oo aad tiraahdo mikrofoonkaana u baahanahay aan shilmaantaana haystaa laakiin markaad ku soo aruurto wax yaroo kooban oo qabiilkaaga dhexdiisa ama deegaanka yaroo aad degan tahay dhexdeeda horumarkii adduunka aad maaragtay la gaari lahayd ama aqligii ka faa'iidi lahayd ama xikmaddii aad ka heli lahayd adaa iska soo xiray taa marka annaga si aan qaran u noqonno waa inaan xargahaas jarno aan maaragtay si global ah u fikirno dhallinyarada aan hadda laga rabaa waajibaadka hadda wuxuu saaran yahay dhallinyarada odayaashu waxooda way soo qaateen waqtigooda way soo guteen xumaan iyo wanaag waxay ku soo qaateen maanta eedda waxay saaran tahay dhallinyarada mas-uuliyadaha lahaayayna ka mid tahay oo aniga Al-Cadaala iyo safiirka iyo ugu horeyno basmi iyo dadka halkaa wada jooga dhammaantooda mas-uuliyadda haayo ugu horeyno waxaa waajib naga saaran yahay inaan la nimaadno aragti ka duwan aragtiyadii hore inaan la nimaadno aqli ka duwan aqligii hore oo maaragta loo soo tijaabiyey oo la soo arkay taa marka maxaan ku gaari karnaa qof walba aniga dadka aaminsan aan ku jiraa sida walaalkayga sheegay qabiilka in lala noolaan karo oo haddii maanta waqti aan helno oo maanta aan level fiican soo gaarsiino waxaa laga yaabaa jiilka naga dambeeyo inay baabi'iyaan waxaa laga yaabaa jiilkan hadda joogo iyadoo qabiil baaba'ay inaysan noolaan laakiin stage intaan la noolaano waxa faa'iidada ah loo isticmaali kara ka isticmaalno oo waxaan gaari karnaa meel fiican stage fiican aan gaarsiino stagekaas markaan gaarsiino waxaa laga yaabaa kuwa naga sii dambeyn inay ka sii qaadaan maxaan ula jeedaa taas waxaa laga yaabaa kursiga hadda sida la sheegay 4.5 kuraasta lagu qaybsadaa laakiin haddii iyadoo 4.5 kuraasta lagu qaybsanayo qof walba qofkuu ka khabiisan yahay aan kursigu ku fariisino iyo haddii aan ku fariisino ama aan maaragta kuraasta ay ku soo fariistaan dad aqligoodii iyo maankoodii fahansan waxa laga hadlayo oo ka sheekeynayno oo xumaanta iyo qubuxa leh laakiin qabiilkii ka tirsan oo kursigu ku soo fariisto isku shaqo ma qabanayaan kan wuxuu ka shaqeynayaa wax walba oo dib loogu dhici lahaa kan wuxuu ka shaqeynayaa wax walba oo lagu horumari lahaa oo laga yaabo inayna gaarsiiso heer aan ka gudubno ra'yi iyo fikir iyo maxaan isla leenahay qofka walaalkaaga ah oo aad isku maaragta fikirka tihiin wax isla leediin levelkaasuu gaaraa qofkaan wuxuu ka gudbayaa inuu qabiil ku difaaco wuxuu marka u gudbayaa inuu dadkii horumariyo
aqligooda hormariyo waxa lagu tartamaya ay noqoto fildis inta injineernimada iyo sartaydiya sartaada ka qurxoon ku tartanto inta caafimaadka ka shaqeynaya anaa kaa qalliin fiican anaa daawo fiican soo saaraysa inay sidii ku tartamaan ayaa la gaaraya